بسم الله الرحمن الرحيم عاشركeenna waxaan ku eegi doonaa hadduu alla qadaro saddex qodob oo waajib ah inaad ilaalisid marka aad bilaabaysid isticmaalka barnaamijka Word 2013 maran qodobka koowaad waxa weeyaan in aad dooratid cabirka ay yeelan doonto xaashidaadu waayo cabirka aad sii dooratid marka u horeysa waxay kaa caawinaysaa ama ay ka qayb qaadanaysaa in aad u soo saartid sidii ugu qurux badnayd ama ugu nashqaday sidii ugu wanaagsanayd buugga ama warqadda ama dokumentiga diyaarinaysid si aad u dooratid markaa cabirka xaashida ama sizekeeda waxaad tegaysaa taabka loo yaqaano page layout waxaad ka dooranaysaa sizeskan kuu soo baxaya noocaad u baahan tahay ku diyaarinaysaa A5 intaasay la ekaanaysaa A3 cagsigeeda weeyaan wuu sii balaaranayaa inagu se waxaan uga baahanahay waa A4 qodobka labaad ee ah waajib inaad ilaalisid marka aad bilaabaysid dokumentiga waxa weeyaan inaad dooratid xaashidaadu si u soo baxayso ma waxaad doonaysaa sida xaashiyaha caadiga inay taag noqoto mise waxaad doonaysaa inay noqoto mid jiifta taasna waxaad ka dooran karaysaa isla taabka page layout orientation kadib labadaa noqol labadaa choice ama labadaa khiyaar ka doontid baad ka dooranaysaa haddii aad doonaysa inuu xaashida ay noqoto chief ama landscape dooranaysaa haddaad u baahatidna waxaad dooranaysaa portrait qodobka saddexaad ee isna kaa caawinaya ama ka qayb qaadanaya in uu dokumentigaagu sida ugu qurux badan kugu soo baxo aad kuna adeegsan kuna fududeynaya habeyntiisa oo aanad ku dhibaatoonayn waxa weeyaan inaad ilaalisid directionka ama itijaahu naska xaggu qoraalkaagu kasoo bilaabmaya ma kasoo kacayo ma midig buu kasoo bilaabmaya sida carabiga oo kale mise bidix buu kasoo bilaabmaya sida ingiriisiga iyo soomaaliga oo kale taasna waxaad ka dooranaysaa toobka home la yidhaahdo taabka home la yidhaahdo kadib waxaad dooranaysaa directionka ama itijaahu naskaas ama text directionkaasi hadduu midig carabi yahay waxaad dooranaysaa kaa midig baad dooranaysaa haddii kale waxaad dooranaysaa kan kale ee bidix una fiiriso calaamadii birbirlayd kolba mar walba halkii tegayso hadduu alla qadaro cashiradeena soo socda ee aan ku eegi doono qaybta ciladaha ayaan ku eegi doonaa hadduu alla qadaro ciladaha ku iman kara marka barnaamijkood wuu isticmaalaysid kana iman karaya saddexdii qodob aan soo sheegnay iyo sidii xalinaysa insha allahu tacaala saasi ka fadaysi wacan iyo cashiradeena dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh